wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa xilalka u kala wareejiyay wasiir ku-xigeenka cusub iyo wasiirkii hore sida warkan uu ku soo diray waryahayaga Qaalid Yuusuf. waxaa maanta si rasmi ah xilkii uu la wareegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland. wasiirkan cusub oo dhawaan madaxweynaha Soomaaliland u yimaaday jagada wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi isagoo hore wasiir uga ahaa wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda. xafladaasina waxaa ka soo qayb galay badiba shaqaale weynaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo mas'uuliyiin aad u tiro badan. ugu horeyna waxaa madashaas ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Professor عبد علي جامع oo ka sheekeeyay waxqabadkii muddadaasi ay ku talaabsatay wasaaraddaas iyo waxyaabihii u suurta galay isagoo dhankiisa ku soo dhaweeyay wasaaradda wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi waxbarashada iyo tacliinta sare loo hambaliyeeyo oo la soo dhaweeyo wasiir ku-xigeenka cusub taasoo daaran tahay xafladeenu waa inta daaran tahay waa intaasun inaynu soo dhaweyno wasiirka ku-xigeenka cusub una ducayno wasiir ku-xigeenkii hore magaranaysaa inala joogay oo isaguna xanuunsanaya ilaahay caafimaad siiyo sareecana inta marka laga yimaado waxaan oran lahaa wasiir ku-xigeenka waxaad ku soo beegatay waqti fiican oo shantii sane hore strategy plankii ama qorshihii magaranaysaa strategiga ahaa shantii sane hore dhamaaday 5 sanadood cusub ay bilaabayaan oo imka lagu jiro hawsheedii marka waa meel fiican oo wasaaradda waxbarashada runtii aad kala qabsan karto waxaan filayaa inaad ku soo kordhin doonto maadaama aad macallin ahayd muddo dheerna aad ku jirtay waxbarashada wixii khibrada iyo wixii waliba de halkaad kaga beegan tahay oo aad heerka siyaasadda inaad de siyaasadda tacliinta wixii aad ku kordhinaysaan hadda wasiiratihiin iyo hadda agaasime annaguna haddaan agaasimayaashii nahay de siyaasadda wasaaradda waxbarashada ee dawladdu leedahay dawladda wasiirada ka tihiin ayaa loo baahan yahay annaguna de inaan fulino waxaa sidoo kale halkaasi isna ka hadlay oo hadalka ka daba qaatay wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Maxamed Jaamac labada wasiirba waa u ducaynayna wasiirka cusub waa u ducaynayna in Ilaahay xilkiisa cusub ku asturo oo uu wax badan ku soo kordhiyo wasaaradda waa u ducaynayna Ilaahay baan u baryaynaa inuu u sahlo oo u fududeeyo hawsha loo igmaday ee qarankani uu ka sugayo waana ku faraxsanahay wasaaraddu waa ku faraxsan tahay maxaa yeelay wasaaraddu nasiib wanaagsan bay leedahay wasiirka cusub iyo wasiirkii ka horreeyay waxay ahaayeen waxa weeyaan dad waxbarashada aad iyo aad magaranaysa ugu jiray sidaa daraadeed fiilkii uu qofku lahaa haddii ay wasaaraddu uu ku soo beegmo waa nasiib wanaagsan waxaana leeyahay bahda waxbarashadu way nasiib wanaagsan tahay maxaa yeelay dadka matiraha u haya badankoodu waxay ka soo jeedaan fiilka waxbarashada sidaa daraadeed bay inoogu suurta gashay intii aynu soo dhaafnayna wax dooraba inoo qabsoomay ilaahay inaynu ku mahadnaqno iminkana sanadka cusub iyo 5 sano soo socdaba istiraatiijiyadii aynu qaadanay aynu xaqiijino oo turjino geesta kale waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cabdillaahi Ibrahim Habane Cabdi Dheere oo halkaasi ka jeediyay hadal dhinacyo fara badan taabanaya isla markaana ku bogaadiyay shaqaale weynaha shaqada wacan ee habeen iyo maalin ay u qabanayaan bulshada Soomaaliland isagoo soo dhaweeyay wasiir ku-xigeenka cusub ilmaha reeyal hadii ayna shaqeyn kareen aan iska weydaarana meesha maxaa yeelay keenay arrinka ay keenay saaka wixii aan isku sheegnay halkiiba kama dhaqaaqayo marka adigu baa yar noqonaya sidii qof yar xanuunsanayo waalan oo kale oo soo eegayaa inaan soo eegayne hadda shaqada baan qabanaa baan banayna meesha marka iyadoo sanad cusub la joogo iyadoo sida uu agaasimaha guud sheegay siyaasadii waxbarashada iyo qorshihii 5 sano soo socda la jaan goynayo oo mustaqbalka loo darasayo sidii loo qaban lahaa hawsha iyo wixii lagu qaban lahaaba loo darasayo oo dhawaan la gabagabayn doono hawluhu way farbaday laakiin haddii hawl walba waaxda leeyahay qabato inta la soo riyo kulmiye waa kii waa bilaasho imikana lacag bay ka qaadaano ana la mariyuno shilin baan u geeyo عسى عاد اللي قصدي ديني يا هدو حسينا ينا نعاوية هدو مساكينة هذا اسكو شقيستة إسلام ساكو شقيستنا يوجدنا ضد ما ساكو شقيستا
caruurtii laga soo wareeyay hada malcaamadii laga soo wareeyay maalmo bay noo yimaadaan innagaba dama sheegnay waxaan tarno ma tarnaa shaarkiisii buu dhijii ku bixiyay yaroo medicine ku jira isha dhaweyd ana shalay u dambaysaan ku bixiyay mishaarkaygii laba kaga bixiyay imikana mid bay sugaysaa miyaan sheegnaa anagu ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dhowaan madaxweynaha somalilan u igmaday jagadaasi axmed xuseen rooble shaqaduna waxay ku fiican tahay in qof walba xilkiisa uu si madax bannaan uga shaqeeyo laakiin aanay noqon isku cunaduub madaxda wasaaraddana waxaan ka codsanayaa inay furfuraan oo ay team work ku shaqeeyaan aniguna mid baan ahay oo waxaana xubnidii ka mid ah inaan saaid la shaqeeyo shaqaalaha ka u hooseeya iyo ka u sarreeyaba ayaan idin ballan qaadaya haddii ilaahay yidhaahdo waxaan mahad celinayaa ilaahay horta marka koowaad mar labaadkana waxaan mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud sinaayi waxaa intaa ii soo raacaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada meel ay joogaanba salaan baan u marinayaa hawada xafladan ayaa